السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan asxaabta ku xiran kanaalkeena Kobci Garaadkaaga. Maanta waxaan idiin sidaa sheeko cusub oo qurux badan, laakiin dhammaadkeedu waa mid fikir iyo cimro qaadasho leh. Haddaba sheekadani ciwaankeedu waa shaydaankii khayrka sameeyey. Ku raaxayso dhegeysigeeda, sheekooyin iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh. Si aad u hesho usbuuc walba, subscribe saar kanaalka Kobci Garaadkaaga. maalin maalmaha ka mid ah gabadh faqiira ayaa garaacday goob warbaahin si ay u weydiisato maamulka goobta caawimo si loogu caawiyo ubadkeeda kadib markuu dhintay aabahood. waxaa jiray nin mulxid ah oo dhegeysanayay barnaamijka. markii ay soo hadashay gabadhaasi, wuxuu go'aansaday inuu la hadlo warbaahinta si uu ugu jeesjeeso gabadhaasi. wuxuu la hadlay ninkii maamulka goobta, wuxuu ka qaatay ciwaankii gabadhaasi isagoo ku xujeynaya inuu caawin doono gabadhaasi una diri doono lacag iyada iyo ciyaalkeeda bil kasta. kadib markuu helay ciwaankeedii, wuxuu amray shaqaalihiisii mid ka mid ah inuu soo iibiyo cunto iyo dhar una geeyo gabadhaasi. laakiin wuxuu amray shaqaalihii haddii ay weydiiso cidda soo dirtay alaabtani inuu ugu jawaabo waxay ka timid shaydaan. dabadeed wuxuu u jahaystay shaqaalihii gurigii gabadhaasi, wuxuuna siiyey alaabtii. gabadhii waxay gashay xaalad wanaagsan iyo farxad, una mahadnaqday ilaahay. waxayna bilowday inay dhigto alaabtii gurigeedii yaraa iyadoo aan weydiin qofka soo diray alaabtani. shaqaalihii wuxuu istaagay in yar isaga oo fikiraya. dabadeed wuxuu u soo dhowaaday gabadhii isaga oo weydiinaya, miyaana doonayn inaad ogaato qofka soo diray alaabtani? waxay ugu jawaabtay si fudud, anuu ma rabo arrinkaas, sababtoo ah haddii ilaahay uu kuu qoray shay, xitaa wuxuu kuu sakhiraa shayaadiinta.